jaamacadda weyn ee magaalada St Cloud ee St Cloud State University ayaa sanad walba waxa ay qaar ka mid ah ardaydeeda ay ku abaalmarisaa hoggaan wanaaga Excellence in Leader Award abaalmarinta hoggaanka hufan. sanadkan ayaa waxaa la abaalmariyay dhowr iyo 20 arday oo ka kala yimid wadamo kala duwan. haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ahaa 2 qof oo ka soo jeeda bulshada Soomaalida oo uu ka mid yahay Cabdiqaadir Cabdulaahi oo isagu markaas qaadanayay shahaadada MBA-ga Business Administration maamulka iyo maareynta. sidoo kale waxaa shahaadada bachelorka ayadana qaadanaysay Xana Saciid. barnaamijkan qaybtiisa hore waxaanu ku eegi doonaa guusha waxbarashada Cabdiqaadir Cabdulaahi. haddaba waa kuma Cabdiqaadir Cabdulaahi? Cabdiqaadir ayaa waxa uu nooga warramay noloshiisa. Cabdiqaadir waxa uu joogi jiray gobolka Georgia, kadibna waxa uu soo wareegay gobolkan Minnesota sanadkii 2014. Cabdiqaadir waxa uu waxbarashadiisa hoose uu ka bilaabay kolleejka ku yaala magaaladan ee St Cloud Technical Community College. waxa uu shahaadadiisa labaad ee bachelorka uu ka qaatay jaamacaddan St Cloud State University. kadibna waxa uu doontay inuu ku dadaalo shahaadadiisa MBA-ga ama shahaadada masterka inuu ku qaato maamulka iyo maareynta, taasoo ah tan maanta lagu abaal marinayo xagga hoggaan wanaagga. dhanka kale waa aabe korinaya 5 caruura xaasana leh. sidoo kale waa macallin dhiga dugsi quraanka maalmaha uusan shaqaynayn ee sabtida iyo xadda. waxa uuna galbihii ama gelinka dambe mararka qaarkood ka caawiya ardayda waxbarashada ama layliska guryaha. waxaana weeye shaqaale ka shaqeeya xafiiska degmada Estrines County qaybtiisa caafimaadka, taas oo dadaalkaasi ay tahay iyo dhinaca waxbarashada waxa lagu abaalmariyay ama uu ku helay awaadkan. marka aanu tixraacnay aanu horey ugu aragnay inuu ku jiro kaliya 1 qof oo Soomaaliya dadkii horey loo siiyey ay ku jiraan Cabdiqaadir iyo Xana. haddaba waa kana Cabdiqaadir oo inooga warramaya taariikh nololeedkiisa, waxbarashadiisa iyo tan qoyska ahba iyo waxyaalaha uu ka dhex qabto bulshada magaalada St Cloud. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. maanta magacayga waxaa la dhahaa Cabdiqaadir Axmed Cabdulaahi. waxaan imid St Cloud 2014 bishii 8aad. waxaan ka soo wareegay meesha la yiraahdo, aan ka soo guuray ama aan degnaan jiray intaan inta u soo wareegin ka hor Stone Mountain, Georgia. markaan imid inta waxaan waxbarashada ka bilaaway St Cloud Technical College. waxaan ka qaatay associate's degree-ga ugu horeeyay. marka kadibna waxaan u soo gudbay St Cloud State University. waxaan ka qaatay bachelor's degree-ga ugu horeeyay. marka kadibna waxaan u gudbay inaan qaato master's degree. waxaan ahay aabbo. waxaan leeyahay waxa ii joogo ilaahay siiyey 4 caruur ah. xaas baan ahay. waxaan ka shaqeeyaa public health-ga, full time baan ahay, shaqaale ah. macalinna waan ahay oo maxaa la dhahaa dugsiga ilmaha quraanka iyo gaada baro sabtida iyo xadda, iyo galbihiina ka caawiyo homework-yada iskuulaadka iyo waxyaabaha laga soo siiyey. maanta waxaa la ii guddoonsiiyey abaalmarinta la yiraahdo Leadership Excellency. bishii koowaad sanadka kan 2026ka waxay la soo xiriiray waaxda waxbarashada ee jaamacadda St Cloud State University. waxay ii sheegeen in markay fiiriyeen background-kayga ama taariikhdayda, midda kale markay fiiriyeen GPA-ga aan haysto oo ah 3.7 GPA, marka waxay igu dhiirigeliyeen in aan u qalmo in abaalmarinta aan helo. marka sidaa awgeeda waxay processkii baan maray. marka judgeskii ama dadkii xukminayay markay qiimeeyeen waxbarashada iyo mas-uuliyadda iyo khibradda iyo aqoonta, waxaan marka ku guulaystay maanta. marka waxaan aad ugu faraxsanahay in ay igala soo qayb galeen macallin Anwar iyo saaxiibkay Cali Geedi iyo Axmed maxaa la dhahaa idaacadda.
marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa. uu u soo hoyey bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada St. Cloud guud ahaan gobolkan Minnesota iyo waddankan Maraykanka ama dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka magaalada St. Cloud oo ka soo qayb galay waxayna nooga warrameen inay arrintani ay u tahay guul. Cabdiqaadir oo isagu bulshadani door kala duwan ku leh waa mid ka shaqeeya xafiiska degmada qaybta caafimaadka markaasoo u shaqeeya dhammaan dadka uga baahda countiga ama degmada oo idil adeega sidoo kale inuu yahay macallin dhiga dugsiyada quraanka maalmaha uusan shaqaynaynin weekendiga dhanka kalena uu yahay aabe korinaya caruur shana iyo xaas sidoo kalena ahaa nin waxbarashadiisa aan marnaba ka harin ilaa uu qaatay shahaadadiisa master degreega oo uu ku qaatay maamulka iyo maaraynta isagoo weliba intaa loogu daray abaalmarin. waxay u tahay guul bulshada Soomaalida. hadalladoodana waxaa ka mid ahaa sida tan. waxaan ka mid ahay odayaasha degan muxuu ahaa St. Cloud. runtii waxaanu joognaa halkan jaamacadda St. Cloud State University. waxaa ka socota xaflad qalin jabin ah. xafladda waxaa ku jira oo qalin jabinaya saaxiibkay macallin Cabdiqaadir Cabdulaahi. wuxuu qaadanayaa shahaadada muxuu ahaa master's degree. wuxuu kale oo ku guulaystay hogaaminta ama leadership habka hogaaminta wanaagsan. runtii waa Cabdiqaadir wuxuu ka mid yahay dadka bulshada ku dhaqan St. Cloud odayaasheeda. wuxuu ka mid yahay culimada masaajidka. waa nin ma garanaysaa bulshada dhexdeeda qiimo zaayida ku leh. waxaanu halkan u nimi maanta inaanu taaniyadeyno. waxay noo tahay farxad dhammaan bulshada ma garanaysaa St. Cloudna farxad bay u tahay in ay ka qalin jabinayaan maanta dad ka mid ah bulshadeenna. waxaanu kaloo soo jeedinayaa in waxbarashada awood la saaro si aynu uga qayb qaadanno bulshadan aynu la degannahay qayb uga noqonno iyo waddankeennii oo ma garanaysaa u baahan in waxbarashada lafteeda dib loogu celiyo. runtii farxad bay noo tahay maanta. Cabdiqaadirna waxaanu leenahay hambalyo. waxaanu u ducaynaynaa inuu ma garanaysaa uu noqdo hogaamiye sida ku xusan waxbarashada uu qaatay inuu hogaamiye mustaqbalka iyo hadeerba uu noqdo. dhammaan waa salaamayaa bulshada dhammaan. wassalaamu calaykum waraxmatullah. halkan waxaan u nimaadnay xalfad weyn oo lagu qabtay oo jaamacadda lagu qabtay. jaamacaddaas waxay bixinaysay wax la yiraahdo award leadership ama hogaaminta ayaa la bixinayay. marka alxamdulillaah waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii maanta qaadanaya award leadershipka qaadanayay. waxaa ka mid ahaa sheekheennii macallinkeenii macallin Cabdulqaadir ayaan ka mid ahaa yaa ka mid ahaa. marka saasaan u nimaadnay oon uga soo qayb gallay. waxay noo ahayd community-ga haddaan nahay Soomaali ama community-ga St. Cloud inaan aan qaybo ku yeelano wax walba oo magaalada haddii award laga bixinayo haddii wax wanaagsan oo dhan inay dad inooga qayb galaan ayaa maanta aad ugu faraxsanahay. macallinkeenii ama sheekheennii Sheekh Cabdulqaadir uu inooga soo qayb galay oo uu soo hoyay guushaas uu soo qaatay. marka waxaan kaloo magaalada St. Cloud dadka reer St. Cloud ama dadka Maraykanka ku nool ama dadka Minnesota ku noolba dhammaanteen waa inaan ka faa'iideysano waddankan opportunity-da taalla ee waxbarashada waa in laga faa'iideysto. hadda macallinkaas guusha uu gaadhay asagoo asmacallin ah asagoo sheekh haddana community-gii ku dhex jiro oo wax u qabanaya haddana asagoo family oo reer iyo ciyaal leh haddana asagoo shaqaynaya intaasu dhibaatooyin asagoo ay jirto ayuu haddana alxamdulillaah ilaahay u ziyaadiyo maasha allah tabaaraka raxmaan ayaa maanta wuxuu ku guulaystay inuu master degree uu qaato oo welina uu ka sii badiyo oo reward uu helay oo leadershipka ah. marka
maasha allah aad baan ugu faraxsannahay. sida ay sheegeen dadka waxgaradka ah ee ka soo qayb galay kulankan ayaa waxa ay u tahay guusha Cabdiqaadir iyo Hana guul u soo hoyatay dhammaan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan xilligan waddankan Mareykanka. saxaafadda Mareykanka gobolka Minnesota ayaa hadda ayaamahan waxay aad u hadalhayaan waxyaalo liddi ku ah bulshada Soomaalida ah. waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo ah sida Cabdiqaadir oo kale ama Hana oo ka gaaray guul dhinaca waxbarashada, dhinaca ganacsiga iyo dhanka siyaasadaba. sidoo kalena arrinka Cabdiqaadir waxay dhiirigelin u tahay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan ragga Soomaalida, in aanan waxbarashada looga tegin shaqada iyo korinta carruurta, laakiin ay tahay inuu qofku uu isku wadi kara saddexdaba, adigoo shaqayn kara, korinaya carruurta, sidoo kalena waxbarashada dhammaystirta. Cabdiqaadir ayaa sida ay odayaashu sheegeen intaa waxaa u dheer in uu isagu maalmaha uusan shaqayn bulshada dib ugu celin jiray wakhtigiisa iyo aqoontiisa, isagoo carruurtana bara dhinaca dugsiga quraanka, sidoo kalena ardayda ka caawiya in ay fahmaan homeworkooda ama cashar guryeedkooda. barnaamijka ku xiga waxaanu ku eegi doonaa sidoo kale Hana Saciid oo iyaduna shahaadadeeda bachelorka qaadanaysa sanadkan, sidoo kalena iyadana lagu abaalmariyay kartideeda xagga hoggaanka hufan.